Bismillahi Raxmaani Raxiim. Aad way salaamaya dhammaantiin. Waa anigii maanta hore soo qaadanay wixii la oran jiray antibioticska. Antibioticska waxaynu hore kusoo sheegnay inuu ahaa mid ka mid ah dawooyinka la isticmaalo, weliba loo isticmaalo bakteeriyada oo lagu laayo wax kasta oo bacteria lagu laayo. Waxaynu oranaynaa antibiotics baan oranaa. Antibioticska waa inagii soo kala qaybinay. Maanta hore waxaanu soo qaybinay 7 groups. 7 groups macnaheedu waxa 7 group baynu u qaybinay. Markaynu eegno meesha ay wax ka qabanayso dawaduna 4 group oo waaweyn baynu u qaybinay. Qaar cell wall inhibitor formation la yiraahdo, qaar xidhaya sidii cell wall u samaysmi lahaa ama markuu samaysmayo cell wall-ku, qaar xidhaya metabolism-ka ama falgalada iyo burburinta ka dhex dhacaysa jirka dhexdiisa bacteria-da cell-keega. Protein synthesis inhibitors-ka waxa isagana soo dhiganay protein synthesis waxa u sameeya bacteria-da borotiinka kuwii xidhayay. Bacteria-du dee borotiin bay samaysataa, borotiinka kuwii xidhayay ayaynu maanta hore soo sharaxnay. Nucleic acid inhibitors waxaan iyagana soo sharaxnay kuwii nucleic acid xidhayaba, macnaha DNA-da faragelinayay. Marka waxaynu nidhi qolada cell wall inhibitors formation-ka waa penicillinska, cephalosporinska. Qoladii aynu oranay inhibitor cell wall metabolism-kay xidhaan bacteria-du leedahay, sida waxay ka hortagaan in prevent folic acid synthesis in la sameeyo protein synthesis in la sameeyo ay ka mid ahayn sulfonamides. Kuwaas oo kale waxay ka xidhi jireen metabolism-ka iyo falgalada ka dhex dhacaya jirka dhexdiisa. Protein synthesis inhibitors-ka samaysanka borotiin la samaysanayana waxaa ka mid ahaa tetracycline, aminoglycoside iyo macrolides. Nucleic acid inhibitors-kana iyaga waxaa ka mid ah fluoroquinolones. Marka xabad xabad baynu u qaadan doonaa. Marka ugu horeysa penicillin baynu qaadanaa, marka dambena cephalosporins. Group kasta oo halkan ku jira waynu qaadanaa hadduu Rabbi ogolaado. Waayahay maanta igu bilow qolada hore cell wall inhibitor formation-ka ayay soo qaadanayna. Maxaa ku jira? Penicillin baa ku jira. Waayahay cell wall inhibitors formation kuwa ka hortaga ama xidha inuu samaysmo cell wall inuu samaysmo. Waayahay waxaa ka mid ah penicillin. Waxaa ka mid ah maxay? Penicillin baa ka mid ah. Penicillintu waa low toxicity, wax suna ama sunteedu way hooseysaa. Penicillins are from fungus mold. Wuxuu isagu ka yimi fungus buu ka yimi ama waxa la yiraahdo fungus ayuu ka yimi markiisa hore penicillinsku ay ka yimaadeen. Macnaha waxa weeyaan waxa laga soo dhaliyay fungus. Waaye penicillin have a beta-lactam chemical structure. Qaab waxa uu samaysan tahay penicillinku la yiraahdo beta-lactam chemical structure. Waxaan idinka codsanayaa inta yar casaanku saaran tahay inaad soo baadhaan oo waxay tahay aad soo ogaataan. Beta-lactam chemical waa chemical structure weeyaan taasoo maxay soo saarto maxay penicillinsku leeyihiin. Marka bacteria-du produce waxay soo saartaa enzyme that kaasoo breaks down jajabiya beta-lactamka jajabiya, which is known waxa loo yaqaana as a beta-lactamase. Beta-lactamase baa loo yaqaana. Beta-lactamaska waxa ay bacteria-du soo saartay ee la dagaala beta-lactamase baa la yiraahdaa. Ka hore maxaa la yiraahdaa? Beta-lactam. Penicillinka iska leh waa structure-ku ka kooban yahay. Waayahay aan sii socono. Penicillinska haddaba is large group waxay leeyihiin large group antibiotics. Waa groupka ugu weyn ama penicillinsku waa groupka ugu weyn antibioticska. That can be into the 4 subgroups. Waxaa loo kala qaybiyaa 4 group oo waaweyn oo kasii farcamay isaga. Waaye maxaa ka mid ah? Natural penicillin. Natural penicillin. Penicillinku waa caan inta badan penicillin waa qalajiye sida baad maqasheen filay. Penicillinsku waxa natural 4 baa loo qaybinayaa, 4 group oo iyaga loo sii qaybinayaa natural penicillins. Penicillin naturalka maxaa ku jira? Penicillin V, penicillin G. Labada group baa ku jira. Penicillin V inta badan qanjaa inuu cunaa sooma? Penicillin G kan kalena waxa la yiraahdaa penicillin G. Waaye penicillin resistant penicillins groupkaas la yiraahdo penicillin resistant penicillin maxaa ku jira? Waxaa ku jira oxacillin,
oxacillin, methicillin iyo neficillin. Oxacillin, methicillin iyo neficillin saddexdaa dawo ayaa ku jira oo dawooyin markaa aad u anfac badan. Waayo Aminopenicillins maxaa ku jira? Ampicillin caan weeyaan tan, amoxicillin labadana waa caan, cid walba way garanaysaa. Waayo Extended spectrum penicillin, penicillinkan qaybtan afraad ee groupkan afraad maxaa ku jira? Groupkan horta waa group laba dawo la isku geynayaa. Waxaa mar walba maxay la isku geynayaa? Waa combination. Waxaa la doonayaa spectrum baaxadoodu way badan tahay. Extended spectrum baaxadoodu way fidsan tahay. Penicillin waa group markaa baaxadiisu weyn tahay oo inta badan loo isticmaalo infekshanada waaweyn. Waayo Ampicillin plus Cloxacillin inta badan waxaa la yiraahdaa Yeezayn baa la dhahaa Yeezayn. Markaa kaasi waa isku tag, laba dawo la isku darayaa. Ampicillin iyo plus maxay kala kasiin? Markaa waxaa la dhahaa Yeezayn baa la dhahdaa. Dawo kale waxaana way noo soo socotaa amoxicillin plus clavulanic waxa weeyaan waa laba dawo la isku daray. Waa labada dawo marka la isku daro waxaa la dhahaa augmentin, caan weeyaan augmentin iyadoo 650 iyo 625 iyo kunba waan ka helaynaa tan. Amoxicillin plus clavulanic labadani waa laba dawo la isku daray, waana labada dawo inta badan la isticmaalo, aad baana loo isticmaalaa. Waayahay marka aynu ku sii yara socono iyo wax ku saabsan. Waayo mechanism for action maxay halkee wax ka qabtaan? Waxay wax ka qabtaan waxay xidhaan bacterial cell wall synthesis, samaysanka bacterial cell wall synthesis-ka ayay xidhaan intaasun. Cell wall synthesis-ka gidaarka uu samaysan lahaa bacteriadu ay samaysan lahaydee xagga sare ayuun bay xidhaysaa. Therapeutic uses of the penicillin waxyaabaha loo isticmaalo penicillinka waxaa loo isticmaalaa therapeutic useska waxaa loo isticmaalaa abscess dheecaanada ama infekshannada meel kasta ku dhaca. Meningitis xuubka ama xuubka maskaxda infekshanka ku dhaca. Waayo pneumonia oofta baa loo isticmaalaa. Gonorrhea waad garanaysaa soo ma? Jabti syphilis waay. Waayo tooth and gum infection infekshannada maxaa ahayey tooth and gum infections waxaa la yidhaahdaa ilkaha iyo ciridka infectionska ku dhaca. Infection kasta oo ciridka iyo ku dhaca waa loo isticmaalaa. Otismedia waxaa loo isticmaalaa maxay? Dhagax xanuunka. Otismedia dhagax xanuunka. Syphilis jabtidii baa loo isticmaalaa. Waayahay sii socono. Intaas waa intii loo isticmaalay. Side effect-ga ay leeyihiin side effect-ga ama adverse effect waa ceebaha iyo side effect-ga iyo adverse waa isku mid. Waa ceebaha ay leeyihiin nausea, yalaalugo, vomiting, hunqaaco, abdominal pain, bog xanuun tusaale ahaan gacanta uurka jir xanuun, lethargy qofku inuu daalo, bone marrow damage waxaa ku dhacaya qofka maxay? Bone marrow-giisii ama halka lafta bone marrow ama dhuuxa lafta ayaa damage soo gaadhay hadduu qofku uu qadar badan qaato. Diarrhea qofku shuban buu yeelanayaa. Allergy baa marka qofku ku dhici karaa. Waxaasoo dhan waa side effect laakiin dawada markaad cunto markaaba ma arkaysid laakiin dadka qaar baa lagu arki karaa. Waayahay gudubka ugu horeeya aynu dhigno sawiraan aynu ka qaadano siduu u eg kiniin kastaaba aynu qaadano maadaamaynaan gacanta ku hayn. Penicillin V waa oral form wuxuu u samaysan yahay qaab afka laga qaadanayo waana natural penicillin weeyaan. Indicating waxaa lagu daweeyaa only minor infection waxaa lagu daweeyaa infekshannada yaryar. Cause maxaa yeelay poor bioavailability sheega bioavailability cid xasuusta ma jirta? Waayo bioavailability-gu waxa weeyaan inta dawo qadar ee gaadhaysa muxuu ahayey dhiigga. Tusaale ahaan afkaad ka cuntahay inta dhiigga gaadhaysa waxaa la dhahaa bioavailability. Tan bioavaility-ga inta gaadhaysa jirka way yar tahay maadaama sidaas aanu minor infection-ka ama infekshannada yaryar loogu daweeyaa. It is narrowing
antibacterial spectrum waa kuwa aad u yar awoodoodu marka loo eego antibacterial spectrum kooxaha ama kuwa loo isticmaalo bakteeriyada. They need for dosing 4 times a day waxay u baahan tahay in la qaato 4 jeer maalintii. 4 times a day 4 jeer in la qaato ayay u baahan tahay maadaamay tahay maxay in the poor bioavailability. Waayo penicillin G-gu waxaa loo kala saaraa laba isaga. Penicillin V waxba looma kala saaro. Kuwan labaa loo kala saaraa. Benzathine penicillin G iyo procaine penicillin G. Ku celiya benzathine penicillin G, procaine penicillin G. Yaraanta bus qabato ku yar celceli deedna waa kuu sugmaysaa. Penicillin inta badan waxaa loo isticmaalaa qaabkan baa loo isticmaalaa. Waayahay marka haddii labada aynu u qaybin benzathine penicillin G midmid aynu soo qaadano aynu sharaxno. Waayo weli waxaynu ku jirnaa waa natural penicillin groupkii ugu horreeyay baynu ku jirnaa. Waayo benzathine penicillin G waxaa loo isticmaalaa intramuscular ama IM. IM haddaad maqasho waa intramuscular muruqa ayaa laga siinayaa qofka. Inta badan dawooyinka halkaa yara cas ayaa laga arkaa qofka waxa halka laga siinayo intramuscular halkaasaa la arkaa. Qaarkood baa IV oo intravenous micnaha xididka laga siinayaa. Marka halkaasaad ka arkaysaa. Hadday labadu ku qoran yihiin ta soo horeysa waad qaadanaysaa. Waayahay use waxaa loo isticmaalaa intramuscular muruqa qofka laga siinayaa has long duration. Tii hore maxay ahayd oral bay ahayd. Has long duration of action waxay leedahay xarako dheer oo jidhka ku jiri karto. Expecting waxaa la filayaa ama la filaa to work inay ka shaqeyso several days maalmo inay jidhka ku jirto ayaa la filashadaa. Waayahay sii socono. Procaine penicillin G. Procaine penicillin G waxaa qofka laga siiyaa intramuscular iyo intravenous labadaba waa laga siiyaa. Waxaa laga siiyaa muruqa, waxaa laga siiyaa sidoo kale maxay xididkana waa laga siiyaa. Penicillin G uses waxaa loo isticmaalaa penicillin G meningitis-ka septicemia. Meningitis-ku waxa weeyaan waa xuubka ama layerska sare maskaxda ayaa waxa ku dhacaya infection baa ku dhacay. Septicemia dhiigyo infection ku dhacay waa loo isticmaalayaa. Severe pneumonia khatarta ah ama pneumonia-da aadka u daran waa la isticmaalayaa. Pharyngitis cune xanuunka ama infectionska cunaha ku dhaca. Pericarditis kaadiyaha ama waxa la yiraahdo wadnaha qaybtiisa sare infectionka ku dhaca ayaa loo isticmaalayaa. Waayahay maalinta dambe ama maalinta cashirka ku xiga waxaynu ka qaadanaa penicillin resistant penicillin oo ah groupkeenii labaad ee penicilliniska. Khayr baan idin rajeynayaa.